warahmatullahi wabarakatuh. saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka Studio Sayla 24. haddii ay tahay marka kugu horeysay channelka, subscribe inoo saar, like tan anaga iloobin, dhiirigelin ayay inoo tahay. maanta waxaan ka hadli doonaa nolosha actorka Azim Riyaaz. magaciisa waa Azim Riyaaz. waxa uu dhashay 13 July 1993. waxa uu ku dhashay Jammu Kashmir, India. da'diisuna waa 26 jir. waa actor waana modelista. iskuulkiisana waa Delhi Public School ee ku yaala magaalada Jammu. waxa uu ka haystaa waxbarashada shahaadada ganacsiga. Azim Riyaaz waxa uu bilaabay xirfadda modelistanimada 2014 dhexdeeda. waxa uu xilliga u shaqeynayay shirkadda modelka Blue Company. kambanigaas kadib Azim waxa uu la soo shaqeeyay kambaniyaal badan sida Blackberries. waxa uu ka soo muuqday filimka Mentira Hero oo hogaamiye ka ahaa Farun Dhaban. 2019 dhexdeeda Azim Riyaaz waxa uu ka qayb qaatay India's Most Popular Show. waxa uu qayb ka ahaa taxanaha Big Boss 13 oo uu ku wehelinayay Siddharth Shukla, halka uu koobka uu ku guuleystay Siddharth Shukla. Azim Riyaaz waxa uu ka dhashay family Muslim ah. aabihii waxa la yiraahdaa Riyaaz Ahmed. magaca walaalkiisa waa Umar Riyaaz, waana doctor. Azim waxa uu ku nool yahay Bombay isaga iyo familkiisa. Azim saaxiibadiisa waxa la yiraahdaa Himashi Qurana, waxaana ay kulmeen oo ay isbarteen inta lagu guda jiray taxanaha Big Boss 13, iyagoona xilliga xiriirkooda u bilowday. waxyaabaha uu ka helo Azim Riyaaz iyo hobbigiisa waa jimka iyo safarka iyo cunto karinta. aktarada uu taageero Salman Khan, Deepika iyo Alia Bhatt. kalarada uu ka helo waa madow iyo buluug. sidoo kale dhanka ciyaaraha waxa uu ka helaa sportiska ama kubadda cagta. magaalada uu jecel yahay inuu u dalxiis tagana waa Shimla. saaxiibayaal, intaas aynu ku soo afmeerinaa videogan uga hadlaynay taariikhda ama nolosha Azim Riyaaz. like saar videoga, channelkana subscribe inoo saar. wixii fikrad ahna commentiga hoose inoogu reeb. wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakatuh.